وإن سنة سحبت المنطقة حيدنا تحنا سكر إنتان بلا امتحانين وحكى عصنا سبسكرايب يسات اللايك تمتان ودكتد مع السنة قيبت امتحانين وحنركنا ترشيد ولو عاوشين وحنكون عجارة جاري إذن ويكو قيلنيسا جاري جاري حديث وحنكو برنينا طورين ولو عاولين جيون كدبوحو إيماني شخصيس وحنستوسو سوقل إيشر أولها دبوح استغى ويلسو مشروع سو شرحو أصلا محو كدايا قرار كاسو قرتي بلاصة يكتكتي شقان فصح يكتايون كتاقيا لنكاشين وحيمان سا شركة ماموركا هالين جيون وحنميش كواركيسا جاري كدحي روي وحنديسا دن هالكاميو يجاقو هرايا البداية وصورافيسا waxay wax dhiibaysaa gabar meeshka shaqeynaysa wayna ka tagaysaa gabadhan waxay wax dhiibaysaa linkiyon soo baxay waxayna meeshka soo raacayaan tirashadeena sheen waxay soo laabanaysaa shaqadeeda waxaan ula hadlay saaxiibdeed waxaan ku dhaysaa roow ay mar inay guriga ayaan siyaadaya wayna ka tagaysaa kalniyo gaaraysaa wuxuu dareemay inay soo dawgala kadib wuxuu ka leexanay wada kale in soo dawgala markay arkaan wada kale ka leexday waxay wacay nin soo dirsado loo magacaabo faan dib wuxuu sheegay inuu ka dhumay linkiyon sagan wuxuu ku dhaaya waa inaad raadisaan kadib faan waxa maana walaalkiis ka yar sagan darbaxshay ku dhufnaya walaalkiis wuxuu ku dhaaya linkiyon ayaa ku sheegay asaga wuxuu ku dhahay ninkaas walaalkaaga ma aniga ayaa walaalkaaga waxa ka soo gaanay inay faanka iyo walaalkiisa ay cadaawad ka dhaxayso anka linkiyon wadada saaran wuxuu hal mar weynay fariinka wuxuu ku dhacay gaari soo kala xistaan wuxuu galay shil wuxuu ku dhacay biyaha nimanka loo soo dir markay arkaan inuu shil kale oo biyaha ku dhacay way naxayaan marka shii waxay dhameysnaysaa shaqadeeda ayadoo gurigeeda u socdo waxa ku daayay roob ayadoo wadada saaran waxa horteed ka soo baxay qof way naxaysaa waxaan ogaanay inuu qofkaas yahay linkiyon iyadoo wadadeeda ay ku dhufnaysaa uu suuxaya waxa keenaysaa xisbitaalka asaga uu soo naxaya kadib wuxuu arkay nimanka loo soo diray oo weel ku tawjina ayadoo isku qarinaya gacanyaradii linkiyon waxay joogtay meesha uu shilka ka dhacay dhanka faahiyo walaalkiis wuxuu imaanaya abood wuxuu sheegay inuu linkiyon shil galay abood wadnaha ayaa la qabanaya linkiyon adeerkiisa wuxuu fiirsanaa wax TV ka socdo wuxuu dhahay waxa fiican inuusan soo laabanin markaas waxaan la wareegayaa maamulka shirkadda dhanka linkiyon waxa laga daaweynaya dhaawac soo gaaray waxaana imaanaysa shiin isaga wuxuu dhahay telefonka ayidi booliska ayaa waxay maadaama aad mooto u dhufatay iyadan waxay dhaysaa waxa doontaa ku sameeyaan booliska wicin wuxuu ku dhahay aniga yaanaha iyadan naxsa waxaan imaanay doctorku wuxuu ku dhahayaa suusta ayaa ka tagtay waxa laga yaabaa inay laba sano kadib soo laabto iyadoo ay naxaysaa wuxuu ku dhahay lacagta soo shubtay waxay tagaysaa meesha lacagta lagu shubo waxay arkaysaa lacag badan oo waraaqada ku qoran waxay weydiinaysaa naagta meesha joogtay iyadoo waxay ku dhahaysaa in biro isbitaal ku jiro lacagteeda iyadoo waxay ku dhahaysaa guriga ayaan wadanaya iga jar dib lacagta ay soo diraysaa waxay nuumaysaa linkiyon dib wuxuu dhiibay waraaqada ay ku qoran shuruudo iyadoo waxay ku dhahaysaa intaan lacag xageen ka keenaa wuxuu dhahay ii sheeg hadii aadan sameyn karin booliska ayaan wacaya waxa soo islaamka kirada waxay ku dhahaysaa hadii aadan lacagta kirada siin karin guriga isaga bax iyadoo waxay ku dhahaysaa aniga ayaa ku siinaya maalmo isoo kadib wuxuu soo jeesaysaa linkiyon waxay ku dhahaysaa aniga intaas lacag ma gurigayga ayaa degaysaa aniga ayaan ka taxadiray laad ka caafimaadaysid wuxuu aqbalay wuxuu ku dhahayaa waa inaan waraaq kar saxiixana kadib waraaqa ay kar saxiixanaya habeenkii waxay soo wadaysaa gurigeeda kadib waxay ku dhahaysaa dabaq labaad waa asaga wuxuu ku dhahay wish malami ayaan waxay ku dhahaysaa maya waxay ku dhahaysaa aniga ayaa ka caawina asaga wuxuu suureysnaya ayadoo caawinaas kadibna ay jaranjarada ka soo wada dhacayaan wuxuu ku dhahay adiga hore aniga gadaasheeda ayaan socnaa kadibna guriga ay imaanayaan waxay xirnaysaa kabeeda asaga wuxuu ku dhahay kabeega iyadoo waxay ku dhahaysaa joog ayaan haysaa laakiin biri ayaan kugu cusub soo keenay adiga kuwan sii xiro asaga uu soo tagay waxay keenaysaa biyo kadib wuxuu soo galay qolkeeda wuxuu arkay sawir ay ku wada jiraan iyada iyo hooyadeeda iyaduna way ka qarnaysaa waxay ku dhahaysaa alaabteeda taawna asaga uu soo tagaya kadib waxay imaanayaan fadhiga wuxuu ku dhahay aniga lacag ayaan kugu leeyahay ilaa lacagta ay gudaysin waxa rabay ay sameynaysaa inta kadib waxay imaanaysaa qolkeeda waxay sawiraysaa habeenkaas waxaan arkaynaa linkiyon oo hurdada ka soo kacaya wuxuu arkay inay koox cusub soo gaday wax kasta oo isticmaalayaan waxay u rajinaysaa lacagtiisa kadib waxaan arkaynaa shiga mootadeeda waxayna arkaysaa dibdamsiyaal waxayna ogaanaysaa inuu gurigeeda dab ka kacay soo xaraysaa waxayna ku qiimaysaa linkiyon waxayna ku dhahaysaa lacagta dibileeda ay ka jaran tahay dib waxay maansa shaqadeeda waa soo baxaya waan soo baxaysaa xumaan nin deriskeeda wuxuu ku dhahay linkiyon laabteeda ayuu jijibiyay iyadoo lacag ay siinaysaa waxayna ku dhahaysaa inta dhimaanaa ku dhamaystiraa weyn kasoo tagaysaa xogaa kadib waa soo baxaya waxayna maansa linkiyon waxayna arkaysaa maamka dacwoonaysa wayna raalgelinaysaa kadib waxay soo jeesinaysaa linkiyon wayna ku qaylinaysaa xogaa kadib ayadoo shaqadeeda joogto waa soo baxaya guri ay imaanaysaa ayadoo barkin ku dhufan rabto wuxuu ku dhahay haddii aad barkinkaas igu dhuftid lacagta ay ku ziyaadaysaa wuu ka tagaya xogaa kadib waxay maqlaysaa qaylo musqushka imaanaysa way soo cararaysaa waxayna arkaysaa isagoo kor saaran wuxuu ku dhahay baranbarada iska ilaali iyadan way qaadaysaa asaga wuxuu dhahay bakteeriya badan ayaa ka dhalan karta iyadan waxay ku dhahaysaa habeenkaas waxaa soo baxay baranbarooyin waxayna ku dul soconayaan fadhiga ee isu badnaa markay soo baxaan qasab ay jabsanaysaa waxaan arkaynaa linkiyon oo baranbarooyinka iska ilaalinayo shii markay subax soo kacday waxay dareemaysaa inuusan xalay jiifanin wuxuu ku dhahay sunta baranbarada ayaan u baahanahay kadibna supermarketka ay imaanayaan wuxuu soo qabsanaya mid qaali iyadan waxay ku dhahaysaa intaasoo lacag ma hayo asaga wuxuu ku dhahay midaan ayaa waxtar leh ayadoo xanaaqsan ayay u soo qaadaysaa gurigoo dhan ayay ku buufinaysaa asaga wuxuu ku dhahay telefonka ii dhiib kadibna ay u dhiibaysaa xogaa kadib ayadoo qilinaysaa ayuu imaanaysaa waxayna ku dhahaysaa shaashada telefonka waxa ay saartay iga qaad wuxuu dhahay aniga ayaa fulay u tilmaamay miyo after 30 minut ayay ka qaadmaysaa ankal kambani linkiyon shaqaale ka shaqeysa waxay saaxiibadeedu sheegaysaa inuu linkiyon dhintay waxay ku dhahaysaa maamul cusub ayaa la dooran rabaa maamulahaasna wuxuu go'aansaday inuu shaqaale badan burin doono haddiina buriyo shirkadda video waxay u baahan tahay shaqaale cusub halkaas ayaan aadaynaa wariyaashan waxay TV ka sheegayaan inuu linkiyon dhintay kashiin waxay imaanaysaa gurigeeda waxayna
sawir ka qaadaysaa Lingion wuxuu ku dhahay maxaa sawiradiga qaadaysaa waxay ku dhahaysaa si filmka u arkaan kadibna ay ku soo raadiyaan isaga wuxuu ka qaaday taleefankiisa uu sawiradu u diiday iyaduna ku soo duulacaysaa kadib waxa tagay korontada bay cabsanaysaa waxay daaraysaa taleefankeeda wuxuu ku dhahay jijintan awtidiya ku siiyay iyaduna waxay leedahay walaalkayga ayaa hadiyad ahaan ii siiyay waxay soo xasuusinaysaa markii uu siinayay ninkaas wuxuu Lingion abiis waxa uu maanaa madaxda shirkadda waxay dhahay xaalad shirkaddu way xuntahay dadsan ku fiirsan way burburaysaa maamulada doorna Lingion abiis wuxuu dhahay waan ka soo fikiraya wayna ka tagayaan Lingion abiis wuxuu galay xasuusidii wiilkiis weyn u dhibaatayn jiray Lingion waxaana ayagu miis cuntada fadhiyo waxa hal mar suuxay Lingion kadib waxaan arkaynaa Shiin oo imaanaysa Lingion wax ku dhahay saacadii ma aragta sagan wuxuu ku dhahay godka ayuu igaaga dhacay ku dhahay waxaan u baahnaa kursi man laga keenay iyaduna in xasab waxay ku dhahay inta soo dhacay xagee kan keena dib soo baxaysa waxaan ka hormaanaa asxaabtayda hore inta iskuul ahaayeen waxay asxaabtaydu sheegaysaa in gabdhahan ay korsadeen familka kuwaasiin kadibna ay ka tageen waxaa u imaanaysa mid kamid ah waxayna ku dhahaysaa saaxiibkii halkan ayuu ka shaqeeyaa orduta kaarka iyo qaado shaqo ayuu ku siinayaa iyadana way ka diidaysaa Shiin waxay soo qaadanaysaa biyo waxayna wajiga u shubeysaa gabdha ay iskuulka ahaayeen waxayna ku dhahaysaa shaqaan lagu dirsan faraha la geli weyna ka tagaysaa halkan Lingion guriga waxa ku jooga tubada jikada shukumayo ku duwaya wuuna jiifanayaa wuxuu ku riyoonay markii walaalkiis fan biyo uu ku tuuray uu soo kacay wuxuuna ka warhelay guriga biyo buuxsameen halkan Shiin waxay maansa guriga markay gudaha soo gasho waxay arkaysaa guriga biyo buux dhaafiyeen xogaanta inuu Lingion biyo foobi ku qaweyn dejinaysaa waxayna hagaajinaysaa tubada sagan maanta oo dhan wuxuu fiirinayay iyada dib ay soo dhameynaysaa waxayna ku dhahaysaa khasaariye aad maanta ii geystay lacagtaada ayaan ka jarayaa kadib inta ay wada cunayaan iyadana waxay furweynaysaa caga sagan wuxuu suureysanayaa isagoo hal gacan ku furaa iyadana ay ka helaysaa sida rabtaan iyada ayaa ilkeeda ka furnaysa waxayna ku dhahaysaa isbitaal ayaan u socnaa isdiyaari kadib waxay maanay isbitaalka waxaan la furiyay baasha lagu xirnay iyadana waxay doctorka weydiinaysaa inay maskaxdiisa caafimaad qabto doctorka wuxuu ku dhahay maskaxdiisa way fiican tahay kadibna way soo wada raacayaan waxaan ku dhici gaaray banooni iyada ayaan iska qabanaysa waxay banooni ku tuuraysaa shabka wiilsha oo dhan way u saabinayaan Lingion wuxuu ku dhahay tus gacanta dhaawac miyaa ka soo gaaray kadib wuxuu arkay inay dhaawac ka soo gaartay wuuna ka dhayayaa halka habeenkeeda qolkeeda iyada ku jirto wax saabinaysa waxa soo garaacay Lingion wuxuu ku dhahay waxaan u baahanahay inaan kombiyuutarka isticmaal kadibna way ka yeelaysaa markii uu baxan shaqadeeda ayay wadanaysaa habeenkaas waxaan arkaynaa inuu joogo shaqadeeda waxay soo xasuusinaysaa Lingion kadib waxa uu maanaa maamuleedu wuxuu siinay hadiyad wuxuuna ku dhahay caawa ayaan leenahay adigana noo kadibna uu ka tagayaa habeenkeeda ayagoo maqaxad jooga Shiin waxa loo keenayaa cabitaanka kulula maamuleedu wuxuu dhahay iyada ma cabtay aniga ayaa cabayo dib ay kala tagayaan Shiin ayadoo bix rabto waxa uu la hadlay maamuleedu wuxuu ku dhahay aniga ayaa guriga ku geynayo Lingion wuxuu soo fiirinayaa daaqad wuxuu arkay Shiin oo gaari ka soo dagayso Shiin wuxuu maamuleedu siinayaa wuxuuna sheegay inuu jecel yahay idan waxay leedahay aniga boyfriend ayaan leeyahay isagana wuxuu ku dhahay waxaan iska qaaduna ka tagayaa markay maad u xiraanaysaa dhalada waxay la galay waxayna weydiinaysaa Lingion isagana wuxuu ku dhahay ma arkin kadib way soo tagaysaa waxaan ogaanaynaa inuu dhalooyinka isaga qarinayay intaas markii uu soo kaco wuxuu ugu xasaarayaa goob waxaan guri imaanaysa Shiin wuxuu keenaysaa wajar waxay ku dhahaysaa lacag badan ayaa ka soo bixiyay oo lacagtaada ayaan ka jarayaa wuxuu ku dhahay waxaan ka neecayo noo keenaa naga tuur markay tuurtan gudaha ayuu ka qoslayaa marka habeenka ayadoo baarka joogo waxaan arkaynaa saaxiibada hore ee Shiin waxaan imaanay wiil weyn qashqashaadaya waxaan ka qabanaa Lingion walaalkiis ka yaraa naga loo saaraya waxayna Lingion walaalkiis ku dhahaysaa muddo dheer ismaanan arkin waxaan ogaanay inay labadooda saaxiibo hore ahaan jireen dhankan Lingion iyo Shiin oo wada cunteynayo Lingion wuxuu Shiin u dhiibay loo tigid wuxuuna ku dhahay cawdan bilow sax fiilnaya soo wada fiirsanayna ninka maanta Shiin ayadoo shaqadeeda dhamaystay waxay saaxiibada ku dhahaysaa bogsiidii la xirxir bogsiida xirxiraya ilaa iyo xilli dambe inta waxaan arkaynaa Lingion oo sugay Shiin markay shaqada dhamaystay waxay arkaysaa inay bond ka daadeen soo cararaysaa numaanaysaa Lingion oo wali sugay waxaan ku dhahaysaa iga raali noqo sagan soo bixira way qabanaysaa waxay ku dhahaysaa hal daqiiqo kadib waxay soo jaraysaa loo tigid kale kadib waxay soo galayaan shaneemada fiilnayeen fiirsanayeen habeenkii xil dambe ay guriga soo laabanayaan iska jeefinayaan subax Shiin markay soo qaaday waxay weynaysaa Lingion way soo baxaysaa waxayna ka raadinaysaa wadooyinka kadib waxaa imaanaya nin miskiin waxayna sawirnaysaa inuu yahay Lingion soo baxaysaa waxayna weydiinaysaa qof kasta dhan kale waxaan barnay doctorka oo loo magacaawshaa uu imaanaya Lingion wuxuu ku dhahay message-kaaga waan arkay waxaan kaleena xasuus habeenka uu Shiin weydiisnay kombiyuutarkeeda wuxuu message u diray doctor-sha doctorkan wuxuu Lingion ku dhahay waa kana baaritaanka DNA-ga uu tagay wuxuu akhrisnay waraaqada DNA-ga waxaan galeynaa xasuus maalin waxaa imaaday gacayraha abiis wuxuu ku dhahay aabbaha boqolkiiba konton wuxuu hantidiis ku saxiixay gabadhan waxay haystaa hal gabar aabbahan wuxuu raadinayaa gabadhaas isbitaalka ku jiray wuxuu telefoon weydiistay doctorta wuxuuna wacay gacayradiisa ku dhahay waxaan oo dhan fahmiyaa ka dambeeya idan ha ayadaysaa wuxuu ku dhahay cadee miyaa haysaa idan maya ayadaysaa wuxuu dhahay hadee saas taanigu soo laabanaya kadib wuxuu soo xasuusnay markii ay Shiin weydiinaysay cadeegeeda ku dhahaysay in aniga waa laysoo kortay xasuustaa kadib wuxuu soo galayaa gudaha wuxuuna dirsanayaa telefoon wuxuuna wacaya gacayradiisa waxay ku dhahaysaa faan wuxuu raadinayaa Shiin isagana wuxuu dhahay fursad uu ku raadiyay baasin kadibna banaanka ayuu soo baxayaa marka Shiin wali waxay raadinaysay Lingion waxay soo xasuusnaysaa xasuusiyo quruxda badnaa marka habeenka Lingion oo wadada maraa wuxuu arkay Shiin oo raadinayso kadib wuxuu ku imaanayaa gidaasheeda waxaan ku dhici karaa baaskiil wuuna ka qabanayaa xabtaysaanta oo dhan halkay ku maqnay isagana wuxuu dhahay uu baxsaya marka jirtay oo baxsayaan soo aaday kadib guri markay kusoo laabtaan Shiin waxay soo xasuusinaysaa markii uu badbaadinayay kadibna ay soo kacaysaa waxay arkaysaa isagoo hurdo ay saaraysaa waxay soo qaadaysaa cabitaan soo jeesto waxay gidaasheeda ku arkaysaa
saasoo tahay waxaan ku leeyahay ma jiifan ma kadib xusoo qanaysa cabitaan waxay markii xanaaqdo qanjaaga qabto bombala ayaa wagtahay iyadoo iska fikinaysa waxaan soo galaysaa qolkeeda kale waxaan arkaynaa faano fiino sawirka lingiga markii uu jirka ku socday waxa ku tahay inuu damacsan yahay waxa ku ogaanayna xaqaas u socdo kuma santahay daawashada inuu xaqad xigta bye bye.